كودا وأنيقا شيخ موسى هاي نكاس وامين محمد حسن يا مانيجر كيغا تلصع ku soo dhawow xaqsoor TV iyo weliba barta aynu ku leenahay baraha bulshada ee Facebook arrimaha qarsoon waxaanu ku leenahay nagu soo bir war degdeg ah fanaanka Mursal Muuse oo hees u soo qaaday fanaanada Hodan Cabdiraxmaan isagoo weliba ammaan kala dul dhacay haddaba heestan ayaa markii ay soo duubayeen waxa ay heestu midhaheedu ay ka bilaabmaysaa xaqiiqo xaashiyo anaa ku hantiyey haddaba sideen ognahay oo aan ka warqabno Hodan Cabdiraxmaan baa u soo socota sidaan warar xaqiiqo ah ku hayo xagga Hargeysa haddana sidaas oo ay tahay hees uu sii diyaarinayay oo u sii qaadayay maanta ayuu sidan oo kale ugu soo qaaday heestan midhaheeda uu isagu curiyay ayaan weli soo bixin balse run ahaantii ammaan ayuu korka kala dhacay heesta fanaanka Mursal Muuse Cumar ayaa isagu aynu ognahay inuu in badan sugayay Hodan Cabdiraxmaan oo ay ugu yaraan ilaa sanad meelaha isugu dambeeyeen haddaba Hodan Cabdiraxmaan oo iyaduna xagaabax ugu tagaysa xagga iyo Mursal Muuse ayaynu filaynaa inay biraha inugu soo aadan ama biraha foodka inugu soo ah ay Hargeysa ku kulmi doonaan nolosha quruxda badneed ee Hodan Cabdiraxmaan iyo Mursal Muuse oo dib u kulmaya waxa inoo iftiimaya markaa cadceed qurux badan oo inoo soo baxday sideen ognahay waa lamaanaha ugu wanaagsan fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda kala maqan marka aynu ka hadlayno haddaba waxaan ku leenahay warkan xaqiiqo weeye fadlan walaal waxaan kaa codsanaynaa inaad noo laygarayso muuqaalka si daawadayaal badan aan u helo adigoo ku biiraya barta aynu ku leenahay baraha bulshada ee Facebook ee arrimaha qarsoon kan waa Mursal Muuse oo aad arkayso inuu hees duubitaan uu ku jiro iyo weliba sida quruxda badan uu soo amaanayo iyo shacaylka uu jecel yahay xaaskiisa waxaan oran karnaa ilaahay ha isu daayo oo waa lamaanayaal wanaagsan oo Soomaaliyeed oo muddo aad u dheer kala maqnaa sida aan ognahay laba caruura ayay u haysaa Mursal Muuse Cumar fanaanada Hodan Cabdiraxmaan oo muddo dheer uu shacaylkooda soo shiitamayay haddii aan dib yara milicsano muddo dheer oo ilaa iyo 10 sannadood ayuu shacaylkoodana soo shiitamayay haddana aakhirkii waa ay guulaysteen oo way isheleen haddaba waxaan ku leenahay ma doonaysaa mar walba inaanu warar xaqiiqo ah kugu soo gudbina barta aan ku leenahay baraha YouTube ee Xaqsoor TV fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad noo saarto like muuqaalka oo aad channelkeena ku soo beerto adoo rukumanaya annaguna waxaan ku ballan qaadaynaa warar aad ku qanacdo oo xaqiiqo ah inaan markasta kuu soo gudbino